السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسر وهذا ما شاء الله ما أنت ولا ليال هذا إلهي هذا وقيبت يعني أفراد إن شاء الله يرجينا يا كاري وحيل أن وضبرنا ما شاء الله تبارك الله ولا ليال وحبر شد ومهم ويو إن وحلا برته وقفك بن آدم كوليبتنا هو يذا ما شاء الله وحبرته مهم ويان وحيالها أي مهم كوتها وحكم ذا إن المها هذه عاون كرتيت ما شاء الله مركز وحبرتيت المها هذه عاون كرتها ilmahaada ayaad maasha allah adiga aad gargaari kartaa marka uu shaqo guri kula yimaado ina ilmahaada aad meelaha feerfeeriso ood rafaado ood walbahaarto yacni aad tiraadid yaa ku caawinaya maanta ama aad aabaha la sugtid inta badan aabaha iyo hooyada isku mid ma aha aabaha waxbuu bartaa maasha allah ama wadanka ha kusoo barto hooyada xitaa wadanka wax kusoo bartay halkan markay timaado way iska fadhiisataa way isbahdishaa yacni way isbahdil kala baaha xogow ma garanayo wadankan markay hooyooyinkii wax soo bartay xitaa imaadeen guryaha unbay iska joogaan iyagoo ilmihii laga hayo fursado badan haysta oo ilmahoodii maaragtay aan xataa ka rafaadaynin oo meela loogu haynayo maasha allah tabaaraka allah iyo haddana isliidaan liiditaanka walaalayaal ma fiicna qofka bini aadamka inuu han yeeshaa fiican inaad han yeelataa fiican inaad maaragtay aada hankaada uu kor noqdaa fiican qofka hankiisa inuu sareeyo waa muhiim anigu ma jecli in la isliido marka walaalaha qaaliga ah waxaan idiin sheegahayaa biidnillahi alkariim hooyooyinku inayna isliidin hooyadu inay isliida ma aha hooyadu inay niyada iska jabiso ma aha hooyadu inay tiraado wax ma baran kara ma aha wax waad baran kartaan wax waan baran karnaa insha allah biidnillahi alkariim luuqadaan baran karnaa maasha allah wax allaali wuxuu qofku uu niyada ku hayo baran karaa waad faa-iideysan kartaa wax badan wadamadan walaalayaal waxaa laga faa-iideysan karaa waxyaalo fara badan oo maasha allah aan aada iyo aada aan yarayn oo muhiim ah luuqadii baad ku baran kartaa waxbarashadaada waa sii wadan kartaa hadda maxaa la dhihi jiray wadankeeni halkan isku mid maaha halkan tusaale ahaan waxaa jirta waxbarashada dadka waaweyn maasha allah qofka kaba soo qaad aan dugsi hoose ilaa iyo xataa soo baranin waxba waa lasoo dhisayaa luuqada laga soo dhisahayaa dugsi hoose yuu dhiganayaa maaragtay dugsi saraa yuu dhiganaya hadduu rabo hadduuna rabin luuqada bisa laga dhigaya dugsi hoose u dhiganayaa adiga ilaa iyo afraad wey luuqada iyo ku joogtaa wadankan aan hadda aniga joogo waa saas marka ilaa iyo sagaalaad baad haddana dhigan kartaa oo dugsi sare ah maasha allah waxaad rabta markaas ama waad shaqeynaysaa ama waxaad bilaabi kartaa jaamacad baad dhigan kartaa ama iskool ka sareeyaad dhigan kartaa oo dugsiga sare dugsiga sare oo maaragtay gurundi ischool waa ilaa sagaalaad markaa dugsi saread bilaabi kartaa haddaad rabtid qofku uu rabo dugsi sare uu bilaabi karaa oo 1 2 3 maasha allah qofka aan rabin waxbarashada weyn hadee dadka qaar baan sii rabin in waxbarashada dadka waaweyn oo kaleeto niyada xogow ma jecla inay wax sii bartaan marka waxaad samayn kartaa waxyaalo yar baad kuushash yar baad qaadan kartaa adiga galaasyo yar baad tegi kartaa 6 bilood galaas habaa jira oo wax fiican maasha allah kuu faa'iideynaya walaalayaal gabdhaha walaalaha ah ee wadamadan jooga maasha allah tabaaraka allah inay isyasaan ma fiicna xogow markay sfiga ama luuqada wadankan sfiba laga yiraahdaa Sweden dad luuqada waxa weeyaan dadka waaweyn waxbarashada dadka waaweyn baa la dhahaa sfi markay luuqada bartaan inta badan maba dhamaystaan ama galaaska labaad ama galaaska saddexaad bay kaga istaagaan ama waqti kaga dhamaado meeshan waxaa lagu xisaabtamaa waqtigaas intaasuu kugu dhamaaday baa la dhihi qofka uu kugu dhamaaday waqti saacadaa lagu xisaabinaya marka walaalayaal waxaa idinkula talinaya oo gabdhaha walaalada aan kula talinaya wadankan aan joogno inaynan iska dhamaynin waqtigooda oy wax bartaan maasha allah tabaaraka allah waad baran kartaa inta aabad nooshahay adduunyadan ku nooshahay waxbaad baran kartaa waxna waad faa-iideysan kartaa marka niyada walaalayaal ayaa la iska dilin ma fiicna niyada la iska dilo oo dadka walaalaha gabdhaha Soomaaliyeed waliba tanaan dadka kale waxba igama gelin gabdhaha dhalinyarada ana waa iyagu way iska baranayaan iyadu waa qasab ama ha yaraato ama badnaado waalidkood baa mas'uulka oo wax barta la ama wadankanaaba maasha allah ku dadaalhaya laakiin waxaan sheegayaa dadka asagu qofka weyn ee asagu maaragtay
qofka asagu qasabka ay tahay inuu isagu wax isbaro qofna maanta aan waalidna aan dabada ka wadin isagu marka ay kasoo godo inay wax barto ama waxbarashada niyadiisa waxaan haddaad maqashid waxbarasho waxa la yirahdo waa niyadda qofkan hadduuna niyadda uuna kol haynin waxba ma baranayo laakiin haddaad kol niyad haysid waxbaad baranaysaa wallaahi tijaabi qof waxbarasho haddaad maqashid waa niyadda wax kastaba haddaad rabti inaad wax business samaysatid waa niyadaada haddaad rabti inaad meeshaad maanta joogto meel ka fiican aad rabti inaad tagto waa niyadda haddaad rabto inaad weligaa allaha meeshaadaa fadhido waa niyadda haddii aad goosato inaadan waxba baranin ood meesha intaad tagto iska soo noqoto intaad tagto iska soo noqoto waad samayn kartaa weligaa iyo allaha ani dad waxaa arkay dhihi ilmahayga ilmahayga ii shaqeynaya oo ilmahayga shaqaba meesha ma aha qofkan hadduu wax barto inuu ku shaqeeyaba qasab maba ahaba inaa ku shaqeeyaaba kuleba waxaa weeyaan qofkan waa inuu isagu horta qof bini aadana oo wax keensan kara horta uu noqdo wey oo niyadda aad iska jabinaysaan iska daysiin niyadda la iskama jabin ma fiicna inuu qofku niyadda iska jabiyo bini aadanka niyadda iska jabin walaalayaal gabdhaha walaalada weliba tana Soomaalida ee walaalahay ah iskoolada dhigta dadka waaweyn niyadda iska jabinina waad baran kartaan luuqadaad baran kartaan neeras baad baran kartaan ciyaalkaad hayn kartaan wax kasta oo qof bini aadan qabtay baad qaban kartaan ma sha Allah tabarakallah marka walaalayaal insha Allah maanta waxay noo soo gudbinayaa hadduu Ilaahay yiraahdo arintaasan maanta weli waxbarashadeeni baan sii wadanayna insha Allah iyo qaabka uu qofku wax u baran kara ama ay waxbarashada ugu fududaan karta hadduu maaragtay go'aansado sida walaalayaal inaad qofku u diyaar garoobo waxbarashada yar iyo weyn ma laha hadaad subaxdii kala haysidba kol oo fasal fariisanaysid oo macallinku hor istaagayo waxbarasho weeyaan waa ina waxbarashada waa laba bay noqon inaad ka faa'iideysato iyo inaad ka faa'iideysanin waa labadaas weey marba buug hadii lagu soo siiyo buugaag aad qaadatid boorso aad qaadatid waxbarasho weey marka walaalayaal ma sha Allah annaga hadda fasaxi uu noo dhamaanayaa biidnillaahi alkariim bari iyo maanta mar hadda yani guriga joognaa marka lagsahayga la isoo diray ama shaqo gurigayga la isoo diray ama layliskayga la isoo diray baan ma sha Allah anigu aan maanta aan dhameynaya wixii hadda iigu dambeeyay ma sha Allah inta iigu dambeysay maanta aan qorayaa biidnillaahi alkariim marka walaalayaal waxa weeye waxa idin sheegaya niyadda inaan la iska jabinin inay gabdhuhu wax baran karaan inaad dhaxda xiratiin ma sha Allah tabarakallah gabdhaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed wadamadan qurbaha jooga wadankeena xitaa waad baran kartaan ani hadda waxyaalo badan oo hadda markaan wallahi been idin ma sheeg wadankan markaan imid aniga indhahan ku kala qaaday qof kasto aqli lana ma aragta wax badan waqti badan baa wadanka iga soo lumay aniga alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale in kasto oo adduunyadan awlaadna aan dhalahay ilmo yarna aan haystay hooyana aan ahaa oo guriga ma aragtay aan laftirkayga waqtina igama soo lumina wax waan soo qabsaday oo ilaahay baa awlaad baan soo kursanay laakiin haddana markaad u fiirisid halkan iyo wadankeeni waxyaalo badan oo wadankii aad ka soo qabsan lahayd ama aad waqti aad u haysay oo markii aad halkan u fiiriso halka aad waqti u haysay yaad waxaad isdheeyay dib inaad wax u fiirso ma fiicnaad haddaad markaa wax soo samaysan lahayd oo waxa soo qaban lahayd ama waxa soo iska soo dhisi lahayd saasay noqon lahayd baad isdheey ilaan bini aadan baa tahay marka wadankeena xitaa gabdhaha jooga way baran karaan wax way qabsan karaan ma sha Allah tabarakallah adduunkan waa adduun qalin iyo buug loo qaatay yar iyo weynna ma laha aniga ilmahayga baa inta leeg maxaan baran karaa aminkan may niyadda yaa laga jabin niyadana iska jabin walaalayaal insha Allah aad iyo aad baa idin salaamayaa salaan qaali walaalaha qaaliga ah ma sha Allah intaan video lamida iskaga soo noqonayno oo walaashiin taariikh ama maama nuur oo aad iyo aad idin salaamaysa isku soo noqod wacan walaalayaal qof wax ka faa'iiday walaalkii hasii gaarsiiyo qofkii kale laba jeeraba commentigiina ka akhrinayna haduu la yiraahdo wixii haduu fiican yahay haduu xun yahay labadaba walaalayaal dhiirigelin aniga gabdhaha walaalaha ah ayaan maaragtay ma sha Allah tabarakallah aan dhiirigelinaya waliba tan maamooyinka aniga kale taa hooyooyinka gabdhuhu ma wada aha waa hooyooyinka dhalinyaradu iyagu waqti bay haystaan laakiin hooyooyinka waqtiga iska dilahaya iska dhigahaya inay waxba qabsan karin baan la hadlayaa ma sha Allah tabarakallah subscribe garay walaalayaal walaalihiin la wadaaga ma sha Allah tabarakallah intaan isku soo noqonayna haduu Ilaahay yiraahdo inta aan ma sha Allah inta aan ka daalayana haduu Ilaahay yiraahdo waan wadi doonaa biidnillaahi alkariim aad iyo aad baa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh